imaatinka iyo socodkayga ujeedadiisu waxa weeyaan waa nabad iyo baraare iyo bashbash iyo wax weeyaan anigu dalkan waa dalkaygii hooyadii baa ku nool macaan waxa weeyaan waa nin anigu dalkan Somaliland ama dalkan u dhashay marti kameeyay anigu waxaan nin fanaana oo dadka af Soomaaliga barta ama ku hadla maaha kaasi gaal baa baran kara madow baa baran kara dadka Soomaalida hadday Somaliland tahay Soomaaliya hadday tahay Djibouti hadday tahay hadday kililka tahay iyo hadday tahay NFD iyo Soomaalida adduunka ku firarsan oo dhan nin fanaankooda ayaan ahay marka waxayaan la musique sans frontières musiga iyo sportigu ma kala laha xad waxa weeyaan qofku bilaadanka waxa weeyaan anigu waxaan u imiday dalkaygu hooyo inaan dhalinyarta darbijiifka daryeel la'aanta aniga darbijiifka waxa weeyaan waa eray la qofku hoos loo dhigayo daryeel la'aanta iyo tahriibta marka waxa weeyaan maanta waa godob iyo xumaan in dadkii maanta dalkan indhihiisa ahaa ay badda isku wajahaan oo meel aan garanayn iyo dal aan garanayn ay u tagaan oo dadkii waalidkii ku soo tabcay iyo dalkii ku soo tabcay ay meeshii baneeyaan waajibkoodii waxaan leeyahay waajibkiina garta dalkiinu khayraad badan buu leeyahay cimiladiisa lama heli karo marka waxa weeyaan dalkaaga hooyo anigu qurbaha diil wax lagu noqonayo ma qurba la tagayo dad badan oo Soomaaliyeed anu kamid ahay ba tagtay qurba wax lagu hayo ma jirto dalkeenana khayraadku ka buuxa aan dalkeena hoos u eegno wax soo saarkiisa aan isku diyaarino marka ujeedada aan u imid waxa weeyaan wacyigelinta dhalinyarta taariibta iyo sidii dhalinyar la'aanta dhalinyarta wax loo qaban lahaa oo ka wada hadli lahayn ujeedadii iyo hooyaday macaan oo Somaliland joogta sidaan u soo booqan lahaa aan maaragtay aan u soo arki lahaa inta weeyaan waan ku faraxsanahay waana mahadsantihiin su'aasha doontiina weydiin kartiin midna farxa waxa muuqata in imaatinkaagii Somaliland saad ku soo noqotay toddobaadkii dhawaa saxaafadu ay dhinacyo kala duwan arrintaada ka eegayaan maxaa taas sababaad u malaynaysaa suxufiyiintana maxaad odhanaysaa aad baad u mahadsan tahay su'aashaasi su'aal loo baahnaa oo maaragtay dadka laga qabtiro ama tuhunka jira laga saaro laga tuhun bixiyo saxaafadu horta anu way qaldan yihiin malaha waxa weeyaan ninka haddaad wadani noqotin saxaafadu waa indhihii dadka waa indhihii dalka wixii fiican inaad buunbuunisiin wixii fiican inaad ka shakisiin riba halka geeska laga riday inaad maaragtay adduun aad u faafisiin waa laga qurux badan yahay horta anigu waxaan leeyahay saxafiyiinta inaad laynii baro inaad iskuul dib u gashiin oo baratiin inaad maaragtay wadaniin noqotiin wixii kale wad garanaysid dadka wadaniin inaad noqotiin qofku kolkuu wadani noqdo dalka wuu u naxaya dadka wuu u naxaya eray qof colaad gelinaya ama qof xumaan gelinaya inaad maaragtay ka sii deysiin TV-da ama raadiyada inaad ka sii deysiin waa laga qurux badan yahay anigu horta waxaan leeyahay saxaafadda wadaniin noqda anoo kaftana iga tahay marka waxa weeyaan su'aashaadii weydiisay anu soo noqday oo ahayd maxay ahayd safarkaaga maxaa sababay in si gaar loo buunbuuniyo markan de waxa weeyaan jantar roganta had markuu leeyahay anigu dalka waxaan ku soo galay legal sharci ahaan baan soo galay oo dalkaygii hooyo oo marka waxa weeyaan de marti kamay marka waxa weeyaan in la yiraahdo inagu tooshis tabashadano muxuu yahay anigu gurigeygii baan imiday hooyaday baan u imiday marka ina meel kale loo saaro de ma ahade ya marka waxa weeyaan saxaafadu inay waxoogaa jawiga dejiso wadaniyiin ay noqdaan su'aalahan website-da ay ku qorayaan ama TV-da ay ka sii deynayaan inay anshax iyo asluubta iyo wadaninimada ay ku daraan maalintii dhaweetadii imanaysa waxaa jirtay in boolisku ay gaar kula hadlayeen maxaa dareen caynkeeya way salaamayeen qofka kolka boolisku dadka kamid maaha waa kamid laakiin dareen baa jira baa dareen inaga ka dhigay maaha dareen aniga maaha qofkii lala hadlayay boolisku way salaamayeen kornaalkana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa nabadgelyada uu sugay iyo suu shaqeeyay abaal baan waaya waatay farxaleetiin waxa la bulshada ku soo noqonaysa farxaan markuu Soomaaliland yimaado Soomaaliya ayuu dib ugu noqonayaa taasoo ay bulshadu inta badan isweydiinaysay sababta ay maadaama Soomaaliya iyo Soomaaliland tahay dawlad ka go'day Soomaaliya taa maxaa ka oranaysaa anu siyaasi mihi anu fanaan Soomaaliyeed baan ahay horeyna waanu sheegay xad ma laha socodkaygu xad ma laha kii buunbuuninaya si khaldan warka sidii jirta Somaliland waxa lagu aan ku hambalyeynaya ama ay ku amaanan tahay
horta boqolkiiba boqol nabadgelyada dalka ka jirta hambalyaan leeyahay ilaahayna ha u barakeeyo walaalihiina kalena ilaahay nabad aslaxda ilaahay ha u keeno jabuutina nabadeeda haysata ilaahay u adkeeyo kililkana horumarka iyo wanaaga ka soo muuqda ilaahay ha u adkeeyo marka anigu waxaan isleeyahay waxa weeyaan Somaliland sida ay laamiyada u samaysteen iyagu isku tashadeen maaragtay anan adduun wax siiya ama adduun ku fikireen waxa weeyaan wax walba waad gaari kartiin oo sida maanta Boorame iyo Hargeysa dariiqa sida aad u samayseen iyo maxaa la yiraahdaa Ceergaabo iyo dariiqa imika kale la bilaabayo maaragtay niyada aad hesheen iyo waxa weeyaan inaad maaragtay hawsha halka ka sii wadiin hambaliyana waan leeyahay waana qofkii aqli lena uu nagu boorinaya waxa weeyaan gudoomiyaha gobolka maaragtay awdal waa nin karti badan garasho badan waxa weeyaan inuu maaragtay wax badan sidaan dhageynayo dhalinyarta ama odayada wax badan ka qabtay gobolka kana qaban doona waan garab taaganahay gobolkana dhalinyar odayo mashaayikh xildhibaano oo wixii masab ka haya iyo raydkaba siday ii soo dhaweeyeen ama ii garab galeen maaragtay waa aad iyo aad baan qalbigayga waxa ka go'an weeyaan de kolka inay hadeeta Soomaalida dadkeenu wahay hadeeta awal Soomaalidu ismay buuxin jireen ina maaragtay waa halkii Somaliland ka sameeyeen barnaamij baan daawaday qiimaha qofkaaga si aad qiimo u yeelatid marka qiimaha aad ii sameeyeen waan ku mahadsantiin abaalkan waan yahay assalaamu calaykum